لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كتاب التوحيد وحن كجرني قيبته هوري إن شاء الله تعالى وحن كصوب حني آياتك يا حديثي قدام بيسي إن شاء الله مرك وحن هذا قلينا وحلقة قادنا أيو آياتها يا حديث عن صومرني شيخ كتابك وحود جي baabka markuu ka hadlo caqiidada ku saabsan oo hadda cibaadadu ka hadlay
ilaahay keligii in la caabudo subxaana wa tacaala cibaadadan uu keligii leeyahay. kadib sheekha wuxuu markaa wuxuu sheekha ku xijinayaa waxyaalaha laga qaadanaya aayadaha iyo axaadiista aan soo aragnay oo baabka la xidhiidho. marka waana waxa aad u fiican oo masaa'ilka ku jira meesha ayuu sheekha ka soo qaadanaya. fiihi masaa'il uu yidhi sheekha, waxaa ku jiro mas'alooyin ayaa baabkan ku jiro aayadaha iyo axaadiistaan soo marnay. al-uulaa midka hore waxa waaye buu yidhi alxikmatu fii khalqi اljinni waalinsi, xikmadda ku jirto abuuritaanka jinniga iyo insiga, ujeeddada laga leehay ilaahay u abuuray subxaana wa tacaala. waxbaa loo abuuraa, marka ujeeddada loo abuuro ilaahayba u abuuray subxaana wa tacaala, xikmaddeeda ayaan ka soo hellay meeshaan. maxay ahayd? wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun, saasaan soo nidhi. athaaniya midda labaad waxaan ka qaadanaynaa masalada kaloo ku jirto baabka waxa ana alcibaadata hiya tawxiid, caabudidda ilaahay waxa waaye waa ilaahay keliyeyntiisa subxaana wa tacaala. lianna alkhusuumata fiihi, dagaalka iyo dooda isaga ayay ka taagan tahay, dooda waxay ka dhacday nebiga iyo gaalada mushrikiinta. dagaalka ugu weyn wuxuu ka dhacay laa ilaaha ila allah, ilah xaq lagu caabudo ma jiro ilaahay maahay subxaana wa tacaala. yacni labadaas kelimo ka dhacay oo ilaah in loo diido cibaado loo diido, ilaahay la waxido subxaana wa tacala, cibaadada loo diido ilaahay keyrkiisa subxaana wa tacaala, ilaahay keligiina la caabudo. dooda halkaasi khusuumada meeshaasi ka taagan tahay ayaa loo jeedaa maarat saas oo kale. marka tawxiidka waa cibaada. athaalitha masalada saddexaad oo laga qaadanayo baabka ana man lam ya'ti bihi lam yacbud illaah, ana man lam ya'ti bihi tawxiidka qofkaan la imaan oo ilaahay waxidin subxaana wa tacaala lam yacbud illaaha, ilaahay ma uusan caabudin. yacni fa fiihi waxaa ku jira macnaa qowlihi, ilaahay hadalkiisa macnihiisa, walaa antum caabiduuna maa acbud, adinku ma tihiin kuwa caabudayo waxa aniga aan caabudayo. leanna tawxiidkii lama idan imaanin. cibaado kastoo la sameeya haddaana tawxiidkii lala imaanin ilaahay ma uusan caabudin qofka. wamaa yuuminu akharuhum billahi ilaa wahum mushrikuun, ilaah waa ka yidhi subxaana wa tacaala intooda badan maaragtay ilaahay ma rumeeyaan ilaa iyagoo mushrikiin ah ayay ilaahay rumaysan yihiin. mid walba ilaahan caabuda hu leeyahay, mid walba ilaahan rumaysana hu leeyahay, laakiin tawxiid lama imaanin in ilaahay lagu keliyeeyo caabuditaanka. haddii caabuditaanka ilaahay aan lagu keliyeynin oo tawxiid uusan jirin, cibaado ma jirto waay macnaheed. alraabica masalada afraad oo ku jirta waxay tahay alxikmatu fi irsaali rusul, xikmadda ku jirto fi irsaali rusul, rususha lasoo diro xikmadda ku jirto ayaan ka qaadanaynaa. maxaan ka qaadanaynaa xikmaddaas xay ku jirtaa? walaqad bacahnaa fi kulli ummatin rasuula an icbudu llaha wajtanibu daaquut. ilahay rasuul ummad kasta waxaan u dirnay rasuul ayuu yidhi, waxaan la dirnayna ilaahay keliga caabuda, daaquudkana ka fogaada. xikmadda rususha loo diray intaas keliya ahayd, ilaah keliya inay dadka u kaxeeyaan ilaahay keliya ay caabudaan, shirkiga iyo daaquudka caabudidiisana ay ka saaraan. waa soo marnay baabkay ku jirtaa masaladaasna waa lagu soo sheegay baabkaan soo marnay. alkhaamisa masalada shanaad waxay tahay ana risaalata camad kullu umma, ana risaalada camad waa wada gaartay kullu ummatin ummad kasta. laqad bacahnaa fi kulli ummatin, ummad kasta waxaan u dirnay buu ilaah yidhi subxana wa tacala. marka ummad walba risaalada inay gaartay ayaan ka qaadanaynaa. iyadana ayadahaan soo aragnay ummad kasta rasuul ayaa ilaahay u diri jiray subxaana wa tacaala, si aan loo cudurdaar loo sheegin oo la dhihin waxba nama soo gaarin maaragtay, oo aysan xujo u helin yacni ilaahay agtiisa subxaana wa tacaala. asaadisa masalada lixaad waxay tahay ana diin alambiyaai waaxid, diinta nebiyaasha inay hal tahay ayaa laga qaadanaa meesha. ana diin alambiyaai waaxid, diinta nebiyaasha waa hal kulligood oo dhan. ilaahay hal la caabudo keliya ay dadka ugu yeeraayeen, hal shay ay dadka ugu yeeraan oo ah ilaahay keliya in la caabudo. ma jira diin u yeertay ilaahay keyrkiisa in la caabudo subxaana wa tacaala. hadda kiristaanka leh saddex ilaaha jiro, ciise waa ilaaho, maryamo waa ilaaho, malaku jibril waa ilaahayo, ama ilaah waa ilaaho maaragtay malaku jibril iyo ciise. ilaahyadaa faraha badan ma jiro nabi ciise uguma yeerin ilaahay keyrkiisa in la caabudo.
kulli rususha diintooda waa isku mid an icbudullaha wajtanibu taaquut ayay dadka ugu yeereen laa ilaaha ila allah ay ugu yeereen dadka ilaahay keligii in la caabudo ilaa nebi nuux laga soo bilaabo ama nebi aadan ka soo bilaabo ilaa nabiyullahi maxamed calayhi salaatu wassalaam marka diintooda waa isku mid waxay ku kala duwan yihiin keliya shareecooyinka waxa xalaasha la xalaamaynayo iyo waxyaalaha xalaasha oo xaaraanta waa laga yaabaa inay kala duwan yihiin laakiin inta kale waa isaga mid rususha xagga asalka caqiidada iyo tawxiidka iyo wixii khabar ah oo ku saabsan qiyaamaha iyo ka warramidda maaragtay waxa dhacay qiyaamaha nabiba dadku wax ma sheegin gaar ah isku si ayay uga hadlayaan wixii caqiide iyo masaa'ilka khabarka ah laakiin axkaamta xagga waxaa dhici karta in qolo maaragtay salaado lagu farad yeelo qolo kale laga yareeyo wax loo xalaaleeyo qoladii hore in annagana laga xarimo ama kuwii hore wax laga xarimo in kuwaan loo xalaaleeyo maaragtay likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaajan ilaahay suu yidhi mid kastoo adinka idinka mid a rususha waxaan u yeelnay yani shareeco gaar ah ayaan u yeelnay meeshaas waa ku kala duwan yihiin laakiin inta kale waa isaga mid walidaalika nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam naxnu macaashira alanbiyaa'i abnaa'u callaatin naxnu macaashira alanbiyaa'i abnaa'u callaatin diinuna waaxid annaga haddaan nahay nebiyaasha iyo rususha wuxuu yidhi waxaan nahay ilmo isku aabba ah oo kale abnaa'u callaadka waxaa yidhaha ilmaha isku aabbaha laakiin kale hooyada ah ilmo isku aabba ahaan nahay buu yidhi diinteennana waa hal marka kala hooyada waxaa loo jeeda xoogaa shareecada laga yaaba inay ku kala duwanaadaan waxyaalaha xaraasha iyo xaaraanta iyo maaha diinta waa isku mid rususha ilaahay masalada toddobaad oo ku jirto asaabica wuxuu yidhi almasalatu alkabiira masalada weyn waaye ana cibaadat ullahi laa taxsulu ila bilkufri bitaaquut ana cibaadat ullaahi ilaahay caabudidiisa laa taxsulu lama helayo ma xasilayso ilaa bilkufri bitaaquut in lagu kufriyo taaquutka ma ahe waa masalo weyn masaladaas fa fiihi macnaa qowlihi waxaa ku jiro faman yakfur bitaaquuti ninkii ku kufriya taaquutka oo shirkiga ama shaydaanka ama wixii ilaahay ka soka la caabudo wa yu'min billaahi ilaahay rumeeyo faqad istamsaka wuxuu qabsaday qofka bilcurwati xarigii alwuthqa adeega badnaa yacni waxa waa haddii aadan taaquutka ku kufrinin yacni waa masalo weyn ilaahay caabudidiisa ma helaysid ilaahay caabudidiisa ma helaysid haddaad caabuddo cibaadadii uu ku jira shirki inaadan ku kufrin taaquutka waa la hormariyay weliba faman yakfur bitaaquut ninkii shaydaanka iyo sanamka iyo wax kastoo ilaahay la caabudo ka soke ku kufriya ilaahayna rumeeya saasaa la yidhi ilaahayna rumeeya subxaana wa tacaala wa yu'min billaah marka qofkaasaa xariggii adkaa qabsaday oo diintii adkeyd qabsatay haddii marka aadan ku kufrin taaquutka ilaahay aan rumaysid laakiin taaquutka aadan ku kufrinin yacni ilaahay ma aadan caabudin waaye macnaha ayadda masalada laga qaadana meesha masalada sideeda athaamina ana taaquuta caamun taaquutka waa wax caam ah fii kulli maa cubida min duuni illaah wax kasta oo ilaahay ka soka la caabudo ayaa soo galayo ataasicatu masalada sagaalaad cidamu sha'ni halaathi alaayaati almuxkamaat fi suurati alancaam cidamu sha'ni halaathi alaayaat saddexda aayadood sha'nigooda siduu u wen yahay almuxkamaati ee la sugay muxkamaadka waxaa uu cad yahay warkooda fii suurati alancaam ee ku jira suurat alancaam cinda salafi salafka agtiisa say ugu weyn tahay aayadahaas muxkamaadka ah oo saddexda aayadood qulta aayadihii aan soo marnay yacni ilaahi subxaana wa tacaala fii suurati alancaam oo cabdullahi mascuud uu yidhi qul tacaaluu atlu maa xarama rabbukum calaykum anlaa tushrikuu bihi shay-a ilaa qowlihi wa ana hada siraatii mustaqiima fattabicuuh aayadahaas oo ay ku jireen tobanka dardaaran aan soo nidhi alwasaaya alcashara dardaaranka tobanka ah uu ku jiray aayadahaas say u wen yihiin ayaan ka fahmaynaa casharka aan soo marnay wa fiihi 10 masaa'il 10 masalo ayaa ku jirto ayuu yidhi awaluhaa annahyu can ashirki midka ugu horeeya waxay ahayd in laiska reebay ilaah u sharigeelida subxaana wa tacaala kadib waalidkeen loo xisaanfalo maaragtay waa soo marnay 10 masalo ayuu ilaahay waaweyn ayaa lagu sheegay marka saddexda aayadood si u wen yihiin ayaa meesha laga fahmayaa yacni waxaa la yidhahda alwasaaya alcashara anlaa tushrikuu bihi shay-an wabilwaalidayn ixsaanan
walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaqin caruurtiina ha u dilin gaajo ka cabsi darteed naxnu narsuqukum wa iyaahum ilah waa ka yidhi subxaana wa tacaala aayadihi aan soo marro 10ka dardaaran ahaa. alcaashiru masalada tobnaad waxaa waa al-aayaat almuxkamaat aayadaha muxkamaadka fii suurati alisraa ku jira. muxkam haddaad maqasho qur-aanku waa muxkam iyo mutashaabih. muxkam iyo mutashaabih. muxkamka waxaa la yidhahaa aayadda hal macno keliyay leedahay, macno kale maba leh, macno labaad ma leh, macnaheeduna waa cad yahay. qur-aanka mutashaabihana waxaa waa aayado macno fara badan ka suurtoobi karo. marka aayadahaas inta macno oo mutashaabiha uu ku soo aroorto waxaa la qaadanaa macnaha waafaqsan muxkamka. marka qur-aanka muxkamka fiihi aayaatun muxkamaatun hunna umulkitaab. aayado waxaa ku jira qur-aanka muxkam ah oo kitaabka hooyadiisii saldhigiisii ah. wa ukharu mutashaabihaat, kuwa kalena waa mutashaabihaat. marka mutashaabiha waxaa loo celinaa muxkamka, saasuu sheekha uu leeyahay. alaayaat almuxkamaat fi suurati alisraa, aayadaha muxkamaadka ee ku jira suuratu israa, wa fiiha 18 mas'ala, 18 mas'ala ayaa ku jirta aayadahaas. bada'aha allahu biqowlihi, ilaahay wuxuu ka bilaabay walaa tajcal maca allahi ilaahan aakhar, ilaahay ha u yeelin ilaah kale maciisa ha yeelin, fataqcuda madmuuman makhduula, oo aada fariisato adigoo lagu caayay, ilaahay agtiis laga caayay oo lagu hoojiyey oo wax ku gargaara aysan jirin. wa khatamaha wuxuu ku khatimay biqowlihi walaa tajcal maca allahi ilaahan aakhar, ilaah yani maciisa ilaah kale hala yeelin, fatulqaa lagugu tuura fii jahannama maluuman adigoo lagu eedeeyey, madxuuran lagu tuuray oo lagu shalwiyey. wanabahna subxaanahu calaa cidami sha'ni hadihi almasaa'il, ilahi wuxuu nagu baraarujiyey subxaana wa tacala masalooyinkan say u weyihiin biqowlihi dalika mima awxaa ilayka rabuka min alxikma. kaas waa midkuu ilaahay kusoo waxyooday oo xikmadii ah. ayadahaas yani fii suurati alisraa ku jirayna iyagana meeshay ku jiraan. 11 masalada 11aad ee ku jirta baabka waxay tahay aayatu suuratu الnisaa, aayadda suuratu الnisaa ku jirta alatii tusama aayat اlxuquuq الcashara ee lagu magacaabo aayadda 10ka xaq ee bada'aha allahu tacaala biqowlihi, ilaahay wuxuu ku bilaabay wacbudu اllaha walaa tushrikuu bihi shay'a. wacbudu اllaha ilaah keligii caabuda walaa tushrikuu bihi shay'a, waxna ha ugu shariig yeelina. iyadana yani waa xal aayat اlxuquuq الcashara waa soo marnay iyadana. 12 masala 12aad التنبيه calى wasiyati rasuuli lah صل ly slam cinda mowtihi. التنبيه baraarujinta laysku baraarujiyo calىa wasiyati rasuuli اllahi sal ly wasalam, dardaaranka rasuulka ilaahay cinda mowtihi markuu dhimanayay uu dardaarmay nebiga calayh الsalaatu wassalaam. wasiyadaas waa soo marnay, wasiyadii maaragtay uu yidhi yani atadri ma xaqu llahi cala alcibaad, macaad uu ku yidhi wamaa xaqu lcibaadi cala allah, ilaahay xaqa uu ku lehay dadka ma garanaysaa, dadkana xaqa ilahay ku lehay ma garanaysaa. marka yidhi ma aqaano, ilahay baa yaqaan iyo rasuulkiisa. imanka uu ku yidhi ilaahay xaqa uu ku lehay addoommadiisa waa inay keligii caabudaan, cibaadada keliga waa inay u saafi yeelaan. iyagana waxay xaq ugu yeelanayaan ilaahay subxaana wa tacaala inuusan cadaabin, inuusan ilahay cadaabin haddii ilaahay keligii waxidaan caza wajal. taana waa soo marnay. 13 masalada 13aad macrifatu xaq illaahi calayna, barashada ilaahay xaqa uu nagu leeyahay aan soo barannay oo ah keligii inaan caabudno. 14 masalada 14aad macrifatu xaqi alcibaadi calayhi, addoommada xaqa ay ilaahay ku leeyihiin dushiisa ayaan soo barannay. idaa adduu xaqahu hadday xaqiisa gutaan, ilahay xaqiisa hadday gutaan inuu xaq ku leeyahay. 15 masalada 15aad ana hadihi almas'ala, masaladatan laa yacrifuhaa akharu الصaxaaba, laa yacrifuhaa inaysan garanaynin akharu الصaxaaba, saxaabada badankood. laa yacrifuhaa akharu الصaxaaba lianna macaad wuxuu amray nabiga makuu yidhi macaad ibnu jabal ma ugu bishaareeyaa dadka, nabigu wuxuu ku yidhi yani ha ugu bishaaraynin fayatakiluu, oo marka ilaahay iska tala saartaan. marka walidaalika saasuu waa macaad ma uusan sheegin, markii uu dhimanayuu sheegay baa layidhi ta'ahuman isagoo oo ka baqaayo
in ay qabsato aayaddii in aladiina yaktumuuna maa anzalna min albayinaati walhudaa min bacdi ma bayanahu linnaasi fi lkitaabi ulaa'ika yalcanuhum allah wayalcanuhum allaacinuun ila aladiina taabuu waaslaxuu wabayanuu. marka iyo layubluga shaahidu minkum algaa'ib, marka saasuu u sheegay masalada. asaadisata cashara, masalada 16 waxaa waye jawaazu kitmaani alcilmi, cilmiga in la qariyo inay bannaan tahay lilmaslaxa, maslaxa haddii loo arkaayo. hadda yani xadiiskan waa cilmi oo qofka hadduu tawxiidkiisa saafi yahay ilaahay inuusan cadaabaynin alla subxaana wa tacaala, waa bishaaro. marka dadaa laga yaaba inay si xun u fahmaan oo yidhaahdaan hadan marba laa ilaha illa allah idhaahdo khalaas waxa kasaan iska samaynaya kadibna maaragtay jannadan iska gelaya, inay si xun u fahmaan laga yaaba. marka nabigu wuxuu yidhi ha u sheegin dadka ka qari. marka cilmiga waa la qarin karaa, masalada qof walba wax walba lama sheego. waxaa laga yaaba masala dad in loo sheego ku habboon iyo dad haddaa u sheegta inay ku wareeraan laga yaabaa. marka waa cilmiga waxaa la rabaa inaad maaragtay mararka qaarkood meelaha qaarkood la ogolyahay in la qariyo lilmaslaxa, in loo qariyo darteed, ama lagu sii fidnooba ama dhib ka dhaca ama maaragtay. marka cilmiga waa yani mararka qaarkood in la qariyo way bannaan tahay lilmaslaxa in loo qariyo, sida nabiga uu yidhi ha u sheegin dadka maaragtay oo marka ay tala saartaan. asaabicata cashara, masalada 17aad waxaa waye istixbaabu bishaarati almuslimi bima yasuruhu, sunno inay tahay in loogu bishaareeyo qofka muslimka wax farax geliya inay sunno tahay. qofka muslimna ugu bishaarayso wax ka farxinayo waa sunna, ajraad ka helaysa. athaaminata cashara, midda 18aad waxaa alkhawfu min alitikaal, cabsida laga cabsoonayo tala saarashada calaa sicati raxmati illaahi, ilaahay raxmadiisa waasacnimadeeda la tala saarto in laga cabsoodo. masaladaasna yani nabigu wuxuu ku yidhi ha u sheegin laa fayatakilu. marka muxuu ka cabsoona nabiga inay tala saartaan, inuu qofka ilaahay raxmadiisa waasica ah iska tala saarto yidhaha khalaas wax walba waa lii dhaafayaa, maarata waa lii dembi dhaafaya, khalaas jannadu waa iska gelaya, ilaahay waa ghafuuru raxiim, ilaahay waa maaragtay marka qofka raxmadda waasacnimada raxmadda ilaahay inuu tala saarto oo ka aamin noqdo ilaahay ciqaabkiisa subxaanahu wa tacaala. laa yaamanu makra allahi ila alqowmu alkaafiruun. marka taana meeshaan kusoo marnay cashirka inaadan tala saaranin ilaahay raxmaddiisa waasacnimadeeda in laga cabsoodo. ataasic cashara, tan 19aad qowlu lmas-uuli, midka wax la weydiiyo inuu yidhaahdo camaa laa yaclam wuxuusan garanaynin allahu warasuulu aclam, inuu yidhahdo ilahay rasuulkiisaa garanayo, sida macaadba uu yidhi markuu nabiga weydiiyey. macaad waa caalim saxaabada culmadeeda ka mid ah, ma garanayo yidhi. marka inaad masalada hadaad garanaynin aad tirahdo ma aqaan, hadda sheekh weyn noqo haddaad rabtid waxaad noqo ma aqaan, inaad tirahdo waxaadan aqoonin iyadana meeshaan ka qaadanayna. waadanay wax kasta waa daadiyay aniga waa aqaanaho wax walba aad ka jawaabto, waxdan aqoonin ma aqaan iska dheh, dhib ma laha. 20 masalada 20aad waxaa jawaazu takhsiisi bacdi annaasi bilcilmi, inay bannaan tahay dadka qaar lagu gaar yeelo cilmiga duuna bacdin qaarka kale adoo aan u sheegaynin. dad gaara inaad cilmi gaar ah barto o aad ku gaar yeesho inay bannaan tahay. leanna nebiga macaad ibnu jabal uu xadiiskan u sheegay, isaguu cilmiga ku gaar yeelay. marka qof sheekha caalimka ah wuxuu yeeli karaa dad gaar ah wax cilmi gaara wuu bari karaa, waajibkuma dadko dhan inuu sheego wax walba. marka way bannaan tahay taasna inaad dad gaara wax barto oo culumtii qaar ka mid ah aad ku khaas yeesho inay dadkaa wax bartaan, waa ku bannaan tahay. waxaa laga qaadanaya xadiiska nabiga calayh isalaatu wassalaam. 21 masalada 21aad waxaa tawaaducuhu sala allahu alayh wasalam, nabiga tawaaduciisa hoos isu dhigidiisa nabiga calayh isalaatu wasalam. rukuub alximaari, dameer uu fuulay nabiga, dameer macaad ibn jabal wuxuu yidhi nabigaan la fuulay dameer, nabigii iyo marka nabiga dameer uu fuulay nabiy llahi maxamed alayh isalaatu wassalaam, ceeb ma aha. tawaaduciisaa garanaysaa nabiga calayh salatu wasalam, siduusan isu waaweyneynin, isu kibrinaynin, isu maaragtay mutawaadic inuu ahaa nabiga. dameer uu saaran, weliba qofuu gadaal sii saaray haddana dameerka maca alirdaafi calayhi, isagoo weliba fangeliyey. irdaafka waxaa lahaa qofka in gadaal aad ka saarto, tasoo fangeliyey qof oo macaad uu la saaran yahay, inuu dameer iska raacay nabiga calayh isalaatu wassalaam. marka dameer haddaad raacda ceeb ma aha, adigoo madaxweyne ah, adigoo maaragtay nabiy llahi maxamed kama fadli badnid. marka tawaaduca nabiga arkaysa calayh salaatu iyo kibir la-aantiisa.
الثانية والعشرون مسألة لبي لواتنات جواز الإرداف على الدابة إن قف أتقدال صاري كرت الدابة ده إني بنان تهان كقادنين جواز الإرداف إرداف كوا فنقلين تقدال كصاري ده إني بنان تهي على الدابة دابة ده إن قدال لقى صاره قفك إني بنان تهي يعني هذا النبي دابة يسارين قدال وحا كسر راعي والله صار معاذ بن جبل ساسو kale faras haddaad saarantahay waa saari kartaa gadaal qofka moota haddaad saarantahay gadaal waa saari kartaa yani laakiin haween ma aha ajnabi kaa ah laakiin waa saari kartaa gabadhaada waa ku qaadi kartaa xaaskaada waa ku qaadi kartaa way bannaan tahay dhib ma leh sida nabiga caleyh salatu wasalaam ba uu fangeliyey معاذ بن جبل الثالث والعشرون مسألة الحلواتنات وحاول فضيلة معاذ بن جبل فضل أوليه معاذ بن جبل مش هكرنيسا فضل أوليه علم قارها سيل وقاريالي نبي سيقاره وقاريالي مركاه وعلومه كمدياهي فضل قارنا أوليه معاذ بن جبل رضي الله عنه الرابعة والعشرون مسألة أفر الحلواتنات وحاول عدم شأن هذه المسألة مسألة دان شأن قد سيدو وين مسألة دان توحيدك si u weyn tahay ayaad fahmaysaa oo runtii aad iyo aad u weyn tahay masaladan cidamu shani hadi lmasala masaladan tawxiidka si u weyn tahay ayaad garanaysaa insha allah tacaala baabka intaasuu noogu egyahay maantana insha allahu tacaala haddii ilaah yiraahdo casharkeena intaasaan ku joojinaynaa ilahay nagu anfaco subxaana wa tacaala wa jazakum allahu khayra السلام عليكم ورحمة الله وبركاته